بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتين وحراني دي لهانتين با كسو دوادا قيبتي صدحات يعني قهد ليني قصدي جعيلي حرونك بدني دحمرتي مانديق يا مهد أخيارت قيمها يقادرنتي نقمدن دي لهانتي وين ذكرها لقلينينا دي بودعي يرائي نقود عيتها سوحي هاد مشغول يرأي نسو أسيبي قيبتي صدحات يعني مانتنا هلكا كسي عم بقادي دونا إلا صعود ونكسن انتانا شاكدا وقودا قالين كارنك وحن كعد صنايا بيجك نoo la gareysaan sheekadana share dhadan si u gaarto asxaab idinkoo kala wanaagsan sheekaduna haddan ayay noo bilaabanaysaa filan waa ila yaab ay ku noqotay inay ku aragto ninkii xumaa oo gurigeeda dhex fadhiya waxayna ka fakartay sidii u qaabili lahayd xushmad laawihii xumaanta la doonay malaha waxa qalbigeeda ku soo dhacay intaad bir qaadato madaxa kaga garaac mise waad qaylisaa mise ayr ay iska baxda adigoona la hadlin balse waxa mar walba hor yaalay inuu ninka gurigeedu joogo oo iyagu marti uu yahay inuu hooyadii xaafada ka furtay oo iyadu fariisisay qolka fadhiga in hadii ay wax yeesho ay arintu fashilmayso lagana yaabo in la ogaado wixii dhex maray ugu dambeyn waxay qaadatay go'aan ah inay mahad ku qanciso inuu xaafadeeda ka baxo dibna ugu soo laaban wax walba oo dhex marayna iska iloobo maadaaq intay fariisatay ayayna hadalkii bilowday waxayna tiri waan ku aaminay jacaylkan ku qabay waad iga faa'iideysatay maanta hadii aad jirkeyga ilaalin weysay biri nafteeda ma ilaalin kartid oo kuma rabo iga fogow dibna ha igu soo raadsan markii hadalkeedii dhameystay ayaamahad waxa uu bilaabay oohintii calacalkii ragga Soomaaliyeed lagu yaqaanay isagoo ilintu ka da'aysa ayuu ku yiri xabiibti kaliya ma qaldamin ee labadeenaba waa qaldanay balse qaladkaas jacaylka ayaa iska leh aniga qaladkayga waan qaranayaa balse qaali hadaadan adigu cafin yaa kaloo cafinayo waayo waxay jecel adduunkan kaliya ayaan ka haystaa idil hadaa doonto balse ha iga fogaan kama maarmo mahad intaas kuma uusan joogsan intuu afkii xiray ayaa uu oohin iyo huuha bilaabay oo maandaq kaga raadsanayo beer la xawsi maandaq tala ayaa ku cadaatay xaaladdu hadda waxay isku bedeshay xaalad murugo waxayna raadinaysaa qaab inta ay ku aamusiso ay xaaladda ku dejiso intay u yara dhawaatay ay ku tiri dadka ay maqashiin wax walba way hagaagayaan ee aamus dadka ayaa ku maqlay sidaan waa ceebe walaasheed Maryan oo guriga wax ka soo doonatay ayaa dareentay xaaladda qolka isla markiiba waxay indhaha ku dhufatay mahad ooynaya Maryan markay intaasi aragtay naxdini aan fariir ay ku noqotay hoona maxaa dhacay ayayna ku tiri walaasheed Maandeel balse waxba ma dhicin ayay ugu jawaabtay wayna iska baxday iyada oo wajigeedu cabsi ka muuqato mahad isagoo ku fakiray inuu qorshihiisa ku soo guuleystay ayuu soo baxay wuxuu jelay filim cajiib ah ciyaar oo waxa uu isleeyahay waxa dareensiisay jacayl aad u qabto wayna ku soo laabanaysaa mahad markuu baxay ayay walaasheed Maryan u timid iyadoo leh hoona maxaa ku sameysay wiilka waxayna ugu jawaabtay waxba kuma sameyn waan ku jecelahay ayuu leeyahay anna waan diidanahay maandeeq walaasheed uma aysan sheegin isa seegay dhacay oo iyo halkii dhibaatadu ka bilaabatay oo ahayd habeenkii ay yar cariisneed waayo taas ma awoodo oo waxay ilaashanaysaa sumcadeeda walaasheed Maryan oo ka weyneed ayaa waano iyo wax sheeg wala fadhiisatay iyadoo kula hoona nafsi hagelin adduunka qof walba wuxuu kasbada ayuu leeyahay waxayna uga hoga tusaaleysay iyo maahmaah uga qaadatay dad ay arintan oo kale ku dhacday oo cawaaqib xumo ka dambeysay tii yareedna cabsi ayay ku abuurtay maandeeq cidina lama tashan karto waxa dhacayna cidina uma sheegi karto walwal iyo walaac wuxuu ka haystaa hadii ay mahad ku noqoto inuu ku ciyaaro ugu dambeyntii waxay go'aansatay inay ku noqoto ay raali geliso balana uga qaado inuu ilaaliyo maalmo kadib ay si lama filaan ah u balamisay isaguna marna farxad marna cabsi ayay ku noqotay waayo ma oga waxay ku dhihi doonto balse qalbigiisa waxa uu sheegay in hadda garawsatay jacaylka uu qabo ayna iska cafin doonto mahad intuu si fiican u soo labistay ayuu soo aaday meeshii ay ku ballansanaayeen isagoo farxad iyo cabsi ay ku jirto markuu soo gaaray goobtii ballantu wuxuu arkay iyadoo sugaysa misana nuurkii wajigeeda ka baxayo ee aad u farxad gelinayo isagoo hoos u foorara xisho dartii ayuu horteeda fadhiistay daawadayaal inta ay noogu egtahay qaybtii saddexaad ee qisadii jacayl dhex martay mahad iyo maandeeq intaan qaybtan xigtaan ka gaari doono sidaas iyo nabad diino hadii aad qaybtan ka hesheen inoo la gareeyo insha Allah mahadsanidin